waxbarashadiina waligaa faaraxa ugu tagina guur ha ugu tagina daraagiska gabdhaha isticmaalo waxay aad badankooda soo dhumiyeen waxbarashada waayo cilmiga maadiga iyo diiniga aqli badan uu ku yeelaya wuxuu ka dhigayaa naag adag iyo nin adag facaaga mu ujabaysid because ilaahay subhanahu wa ta'ala barita haduu irsaaq ku calfo waxa tahay nin qalinka wax ku qor yaqaan iyo gabar maskaxdeeda cilmi ka buuxo ma u baahan tahay faarax inuu aad tugsatid ma u baahnid faaraxna mu ujabaysid adna xaliimo kaleeto faarax ma kaaga aqli badinaayo nolosha abaa ilaahay lagu xirnaado ilaahay ha laga bariyo wax walba oo wanaagsan waalidka hal ilaaliyo waalidiinta qaar badan dhibaataysan mid ogaada waalidiintan oo ilmahooda yaani banaanka taagan oo hadda daraagiska isticmaalo guriyaha ku ooynay hadana la caawinin wallahi billahi tallahi waalid kasta ya ilintaas way sugay ogaada hooyo walba dawlad horta ha sugina dawladda ilmahooda aab mas'uuliyiinta ilmahooda ma aragteen wali mucaarad ka hadlay ma aragteen in daraagiska kala joojiyo ma aragteen ilaahay inta ka cabsatay ma aragteen wali mucaarad ka hadlay dhalinyaro la dhibaateeyo maanta oo la baabiyo ma maqasheen qof ka hadlay male dhalinyarada muqdisho baahiya hayso meeqa guriyaha ku baahan wali ma aragteen ma arkeen because qof walba ilmihiis inta uu ka wata anoo kale maanta xil markii la ii dhiibo booska ugu horeeya qadaadicda kale ilmey wif magaalada waa ka waday yaa jooga magaaladan lagu gubanayo hooyo masaakiin ilmaheeda bixi karin iyo aabba maskiin oo waxba awoodin iyo ilmo masaakiin oo meel ba u dhaqaaqi karin iyo gabdho qurux badan oo dantii duruufta ciisho la rabo in laga faa'iideysto markii ay insirin mucaarad mar walba dawladdu ku dhagan yahay dawladii mucaaradda isku dhagan yihiin dhalinyarada dhumayso ya dawladan hadda fiiri ayaan horeeto markaan ra'iisul wasaaraha arintan u geenaayay hadduu ra'iisul wasaarihi baa xataa dadka ka dambeeyay way si qaban lahayn washi laakiin afraad saac ay ku dhagan yihiin wax dhahay ma aragteen meeshan laba saddexdan kalaab oo ummadii baabiisa hal xir wali ma aragteen maxaa aqliga naga qaadayo ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga xishoodo hooyada cunugeeda caasiga ku ah wallahi billahi tallahi hadana loo arxamin caasiyal badana dhalanay carada ilaahay dad badana ku dambi ku soo gaaraya marka insha Allah bidnillaahi kariim waxaan in jeclahay dhalinyaro idinkana ilaahay ha in jeclaado waxaan rabaa nolosha ina meel sare ka gaartaan ilaahay ku xirnaado hooyo kasto dhibaataysan caawiyo anigana waa ku faraxsanahay ina maanta wajigiina soo hor fadhiisto ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga qabto kuwa ganacsiga u yimid ee daraagiska ka ganacsanayo oo masaakiinta dulminayo hooyooyinka ka oysiinayo ilmahooda daraagiska siinayo gabdhahana sharaftooda lagu baabeenayo is ilaaliyo gabdho wiilal idinkuna dadaala faca meeshu gaar waa gaari kartaa faarax makaasare adaa u sareysid ilaahay wuxuu ku qoray magafeesid xaliimo waa qurux badan tahay arkubin abaayo muraayad isku fiiri naka qurux badan ma jirto marka yaa lagu sirin yaa lagu gaadin yaa lagu dhihin waxaana ku qabanayaa kan iisi abuu kama isiinaha waa soo waca sugaa la dhahaa block aytan ma fiicnaba markuu jidka ku arkana maxaa dhee juslis nooca oo kale aniga ma wala sheekaysto bariya hooyo abay dhaleen nin nuucee tahay baxa la dhahaa